dowladda Soomaaliya ayaa abuurtay fursado dhaxalgal ah oo la xiriira dhaqaalaha qaranka 20kii bilood ee la soo dhaafay. dal walba horumarkiisa waxaa lagu qiimeeyaa heerka dhaqaalihiisu la egyahay taas oo ku xeeran dakhliga ka soo xarooda gudaha iyo dibadda. wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa sanadkii tagay ku guuleysatay inay midayso lacagaha ay qaadaan dhammaan hay'adaha dowladda. wasaaraddu waxay xafiiska dhex furatay wasaarad walba oo dowladda dhexe ka tirsan taas oo sahashay in dhammaan ay lacaguhu ku dhacaan hal qasnad kadibna toos loogu shubo bangiga dhexe ee dowladda. hanaanka qaadista canshuuraha macaashka iyo iibka ayaa ahaa tallaabo weyn oo dhanka dakhliga loo qaaday. inkastoo bilaabashadii canshuurta noocaan ah ay doodo badan hareeyeen, haddana in bil walba ay ka soo xarooto 2,300,000 oo dollar waa arrin bogaadin leh. in ka badan 8 milyan oo dollar oo ka dheeriya lacagihii la filayay inay ka yimaadaan dakhliga gudaha ayaa bishii Sebteembar ku xarooday bangiga dhexe ee Soomaaliya, iyadoo ay xusid mudan tahay in labadii sano uu jiray taliska madaxweyne Farmaajo in si joogto ah xuquuqdooda u heleen ciidanka iyo shaqaalaha dowladda. intii lagu jiray 2018 Soomaaliya waxay ka gudubtay wajiyada koowaad iyo labaad ee barnaamijka deyn cafinta caalamiga ah oo ay hor yaaleen shuruudo adag kuwaas oo ay ugu muhiimsanaayeen hagaajinta maamulka maaliyadda dalka iyo kordhinta dakhliga gudaha. hay'adda lacagta adduunka ee IMF warbixin ay soo saartay 10kii Diseembar ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay ka gudubtay wajiga koowaad ee dib u eegista heerka saddexaad ee barnaamijka deyn cafinta. IMF waxay ku ammaantay Soomaaliya sida ay uga go'an tahay buuxinta shuruudaha ku xeeran deyn cafinta. 140 milyan oo dollar ayaa bangiga adduunku abaalmarin ahaan ugu yaboohay Soomaaliya kadib hagaajinteeda hanaanka maaliyadda iyo kororkeeda dakhliga gudaha. midowga Yurub ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inuu 100 milyan oo lacagta Yuurowga siinayo Soomaaliya, taas oo ah mid dhiirigelinaysa heerka hufnaanta maaliyadda ee dowladda Soomaaliya. kororka dakhliga iyo isbeddelka dhaqaalaha wuxuu wax badan ka bedelay miisaaniyadda dalka. 30kii Diseembar 2018 baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay miisaaniyadda qaranka ee 2019 oo dhan 340 milyan oo dollar, taas oo 66 milyan ka badan miisaaniyaddii sanadkii hore. inkastoo meeshii la rabay aan weli la gaarin, haddana Soomaaliya waxay u muuqataa xilligan dal la aamini karo sida ay qabaan IMF, World Bank iyo deeq bixiyaasha caalamiga ah.